cunugeygana waxaa ka keenay meel fogaa ka keenay gaalkacaya ka keenay xamar markaa keenay dhowr istaalaa geeye istaaladii waxay ugu dhaheen waa la qali karaa cunugaaga 2 qaliin u baahan yahay 2 qaliinna waxaa ku baxaysa $1000 lacagtiina markaas xoogaa gacanta igumay jirnin xanuunada ay soo mareen kaayadu way dhibi jirtay badana markasta infection iyo waxba ayaa ku dhex jiray isbitaallo badan oo la wareeji jiray adii muddo 10 sano antibiyootig iyo wax la ku wada qalajiyaal magacayga waxaa waaye Istaahil Cali Xasan waxaa qalliin la iigu sameeyey isbitaalka Siman horta marka hore waxaa u mahadcelinayaa isbitaalka Siman iyo Hormuud Salaam Foundation oo qalliin free ah iigu sameeyeen cunugayga yarka ah oo maxaan ku dhahaa xaalad oo ay ku dhashay uu qabay xaaladaas cunugayga uu ku dhashay uuna ka kaadinayna meesha ilmaha loogu talagalay cunuga inuu ka kaadiyo afka horeeta uusan ka kaadinayn soo cunuga markasta wuxuu u baahan yahay in lala socdo markuu kaadinayo cafaayadii kaleeta laga bedelo daryeel dheeraad u baahan yahay cunugeygana waxaa ka keenay meel fogaa ka keenay gaalkacaya ka keenay xamar markaa keenay dhowr istaalaa geeye istaaladii waxay ugu dhaheen waa la qali karaa cunugaaga 2 qaliin u baahan yahay 2 qaliinna waxaa ku baxaysa $1000 lacagtiina markaas xoogaa gacanta igumay jirnin barnaamijkaana waxaan ka soo arkay marka Facebook boostiga la soo dhigay istaal Simana imaaday saasaa qalliinka la iigu sameeyey cunugayga uuna ii fiican yahay xaaladiisa aad u fiican tahay waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahadceliyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maama Adne Cabdiraxmaan oo noo keentay dhaqaatiirta Talyaaniga ah iyo Hormuud Salaam Foundation iyo isbitaalka Simana waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin Ilaahay idin barakeeyo أنا magacayda Maxamed ilmo oo 2 wiil oo aniga dhalay muddo 10 sano dhinaca kaayada ka qaldaneed istaal kasta kula wareegay juhdi badan gelishay maalmaha ka mid ah Facebook post ku arkay oo Hormuud Foundation iyo soo dhigeen marka waa raadshay waa la macaamilay waa la qaabilay 2 wiilna waa la qalay xalaal la qalay qalliinka hadda waa loo guuleystay marka waa aad iyo aad waxa ugu mahadceliyaa Hormuud Foundation iyo walaashayna maama Adna oo dhaqaatiir Talyaaniga keentay marka aad iyo aad ugu mahadceliyaa